bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariistaa annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob qodobka koowaad nasabka iyo qabiilka dadka meel degan ay sheegtaan oo ay galaan oo abtirsiyaha la yiraahdo ma bannaan tahay horta diinta islaamka marka la eego in la badbedelo oo marba meel la saaro kelmad baan ka oranaya dood dheer oo ka dhacday universal baan kelmada ka oranaya qodobka labaad qaraxyada lala beegsanayo hormuud na kelmad baan ka oranaya qodobka saddexaad isimada SSC iyo mowqif maqaamkooda ama meesha la rabo inay kaga aadaan doorashada Puntland ka socota iyo deni qoraal uu soo gashaday xayeysiis uu leeyahay madaxweynihii xoreeyay baan ahay iyo falcelin ka dhalatayna kamid baan ka oranaya dadka nasabkooda lama ogola in lagu ciyaaro lama ogola Muuse dhibaatada uu reer waqooyi ama isaaq u geystay waxa kamid ah waa waxa ugu yar in la raadinayo cidda ay galaan waa mushkilo hadday tahay siyaasadii waa burburiyey wadajirkii waa burburiyey amnigii waa burburiyey dhaqaalihii waa burburiyey wuxuu u soo dhigtay hadda oo maraya in isaga loo isticmaalo Soomaalida dhalinyarada ah ee ku nool gobolada waqooyi in confusion iyo wareer lagaga furo cidda ay galaan iyo qabiilkooda aslan qabiilka waxaa lagu bartaa lagu yaqaan ay u jiraa ku qoran yahay buugta loogu qoraa sheegasho uu qofku ku sheego aabihi nin aan aabihi iyo awowgii aqooni ma jiro awowgaana wuxuu yaqaanaa isna aabihi iyo awowgii kaasuna wuxuu yaqaanaa aabihi iyo awowgii nin walbaana wiilkiisa u sheegaya aabaha aniga ana aabba ku aho ku dhalay waadi taqaan aabahay aniga waa hebelna hebel baa dhalay hebelkaasna hebel baa dhalay abtirsiye saa loo tirsado ayaa lagu galaa isaaq ma aha reer hadda dhashay oo wax loo raadinayo dadkaas ballaaran oo Ilaahay badiyey ee cid walba leh aqoon-yahan leh culimo leh waxgarad leh siyaasiyiin leh horumar iyo dhaqaale iyo wax walba higsanayo oo tiigsanayo la yaqaan macruufa taariikh leh soo jireena way maalin walba iimaan laawe been ku sheeganaya duub inuu yahay mid ugaas sheegto hadda sheekadan ugu dambaysa waday oo reerkoodu ii sheegay inuusan ugaas ahayn beentii ay tahay shaqo tag u yahay iyo mid ka horeeyo hoolay la oran jiray ciyaalo yar yar oo wada oo la socdo oo wax ku raadinayo dhaqaale ku raadinayo dadka nasabkooda inay ku ciyaar horta diinta islaamka ma ogosha dhowr xadiis baan idin sheegay kulligoodna waa Bukhari iyo Muslim muttafaq weeye xadiiska koowaad nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxaana wariyay Sa'd ibn Abi Waqqas man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi faljannatu alayhi haram qofkii sheegta inaan aabihi ahayn inay dhashay ama reer hebel inuu galo oo been ogna inay been tahay jannadu xaraan bay ka tahay xadiiskaas waa muttafaq xadiiska labaad Abu Hurayra wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kufrun qof haka cararinina abayaashin iyo qabiilkiina qofkii ka carara oo sheegta inuusan ahayn reerkiisa oo qabiilkiisa qabiil aan ahayn sheegta waa gaal buu yiri xadiiskaasna waa muttafaq ka saddexaad طارق شريك بن طارق وحليه عن يزيد بن شريك بن طارق يا وحليه علي بن منبر كسارنا رضي الله عنه وهلي مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا وقمتين قاره marka laga reebo warqad uu ka soo saaray seeftiisa oo uu yiri warqadaas ma garanaysaa bas buu nooga tagay iyo kitaabka Ilaahay iyo sunnada dadkan ula simanahay warqada maxaa ku qornaa waxa ku qornaa magaha iyo sida loo kala sinto jaraxaadka iyo dhaawacyada dadka kala gaara iyo inta geel la bixinayo waxa ku qornaa waxa kale ku qornaa aakhirkeeda qaybta ugu dambaysa waxa kamid aha waman idda'a ila ghayri abihi qofkii aabihi cidaan ahayn sheegta
أو انتمى إلى غير مواليه أما أدون لحرية عدي حريس عيدان هين شيكته لبداس قفبة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلهي لعنة جيسو هكو دعضو تي ملائكته هكو دعضو ضدك أودان لعنة دو هكو دعضو لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا حديث كاسونا يسونا ومتفق إلا وحبا لا يقبل ماي سنة يفرض منا لا يقبل ماي وناك إيو واحتر منا لا يقبل ماي جنة أركي ماي أهل النار وي كفر وي كفر دون كفر عن رانو أما كفر أصغر عن رانو العمد إلهي وكل عيسى انت سالي سودر إساق مشالي ودش حام علي ما ميلو الأردية مروح علي دربا لنيرها درباتي وعلى قوضي إرل سمالا لنيرها وعلى قوضي وحا لقي هدنا أرمات اسكو قبيلتين مركي أرمادي أي كسو بودين وليري منهن دادكي شعب كان اللي يرادي أي كسو بودين با انت هذا الله حيلا ديا اللي يرمايا إذنكو دربا قشان إيقونا دربا أرمنا دربا قشان أرمى الصومالي وانا كوين تاي wax badan oo badan bayna ka horeysaa oo boqolaal kun oo sana mawjeeda xagee iska galnaa see isu galnaa way dhici kartaa dad inay ku abtirsadaan dad badan oo hadda oromada ah baa asal ahaan Soomaaliya oo Soomaali ka soo jeeday oo galay oo oromoobay ma arkaysaa laakiin Soomaalida hadda joogta oromo ma dhaqan xumana weeye dadka qabiilkooda in laga ganacsado culimadu ma aaminsan yihiin wax walba ma ka aamusayaan maadaama siyaasad dawladdu ay dhinac kaga lamaan tahay ay tahay oo baagadaha iyo lafti naga iyagoo ay keeneen ha laga aamuso miya dhaqan xumada dadka laga daayo caruurta dhalinyarada yaan confusion ugu rid waxaan aad u bogaadinayaa dhalinyarada reer waqooyi oo si naf iyo mugle isaga riixay oo yiri war waxa nagala tagay yeelmin ganacsi waa ogolnahay wada dhaqan waa ogolnahay isdhexgal waa ogolnahay يعني وحياة بدن بانا دح مري كرا لكن بدنا سين ماينو قبيل هانا نقون ماينو شرفت يدا يا كرامة يدا الصومالي نمانا كتناسولي ماينو وليبا دودا كلول بو كلا كل ماي وداقاس ميشا مريي هالكاس هادا كور وحنا سوستا هادا كور وحير وحان تاقيري يا دقالك كسعود قوش عادي هاي قال كعيان كقدو فانيا داروت كان حبت قلني أنا ودرة هاي جليعة سياسية iyo duruufta uu geliyay musabbixi Somaliland oo ahayd meeshii ugu nabadda badnayd oo ugu horumarka fiicnayd oo la wada higsanayay oo kulligood dadku ku wada naaloonayay inay iyagoo kale ama ka fiican noqdaan in uu dhulka dhigay odaygaas miskiinka ah oo aan qofna xabad ku riday waa kiilaha galkacyan kaga dhufanayaan ma kaga dhuftay beentiisaas buu lacag kaga cunay jileecaas uu heerka uu gaarsiiyay duruufta buu ka faa'iideysanaya waa geed garanaya sida businesska iyo ganacsiga loo sameeyo garanaya halkaas kaga faa'iideystay marka qadiyadaas waxaan leeyahay culimaduna ha ka hadleen dhaqan xumadan yaan la faafin Soomaali baa la rabaa inta la qaybiyo oo qabiil loo qaybiyo qolada meel loo tuuro kuwaan uu yiri Yamani weeye Arab weeye kuwaan waa xagaas waxoo dhan Soomaali oo dhan baa marba inta qaybiyo xukuumad garanaysan ujeedada laga leeyahay inta way waana mashruuc ay lacag ku soo qaateen dhaqaalana ku bixiso Ethiopia ayna public u sheegeen oo ay dhaheen badda Soomaaliya rabnaa ka abagadaha ay sheegayeen oo lafti naga lahaana uu yiri baddaan waa isla leenahay taadan kula leeyahay say ila leeyahay gormu ila yeesh sagiyo hooyadiis midna bad ma arag waana ku baqtiyayaan haday badda galaan taas kelmadda intaasan ka oranayo dadka yaan la gelin confusion nasab confusion siyaasadeed baa la geliyay mid dhaqaale la geliyay wareer deganaan la'aan iyo amni la'aan baa la geliyay bal yaan loogu darin nasabkoodii dadka in laga ciyaaro kelmadda intaasan ka oranayo hormuud iyo shirkadaha la midka ah Soomaali abaal bay ku leeyihiin xilli adag bay ka soo saareen waxaan kaloo siinayaaba oo la yaabay yani Soomaalidu waxay ku dhisan tahay shakhsi diintiis iyo amaanadiis bay Soomaaliya hadda ku dhisan tahay xamuud jimcaale isagaa la aaminay amaanadii buu ka soo baxay oo say tahay u gutay alxaqu yuqaal $3 billion oo Soomaaliya oo dhan dhaqaalaheeda waxa haya isaga iyo dahabshiil iyo amal iyo xawlaadaha kale
lacag Soomaali oo la isu dhiibaa ma jirtay telefonka wax lagu diraa telefonkaas hawada ah nimanka numberska galiya haday kombiyuutarada dansadaan oo ayagu khaa'imiin noqdaan oo ilaahay ay ka biqi waayaan dadka Soomaaliyeed cayr bay isku wareysanayaan nimankaas marka qiimahaas ugu fadhiya maxaa loo weeraray maxaa qaraxyadu ugu socdaan waay si joogta loogu qarxinaya waxaan la yaabay waxaan fiiriyay qoraal la wareejinayay oo ay ku qoran yihiin warbaahino sida Universal iyo Goobjoog iyo Somali Cable iyo 5 TV iyo wax la mid ah oo kulligood hal mar loo soo wada diray oo hadallada intay meelay qaarkood ka badbedeleen meelaha qaarkoodna siday tahay isugu waafaqs hatta meelaha khaldanaa oo khalad loo qoray meel walba ku jiraan iyo khaldan yaa ka dambeeyay arrintan aaway dawladii maxaa hormuud loo difaaci laayay hormuud laftigeedu iyada telefoonadu soo maraan iyada kaamarooyinka iyo systemka haysata internet iyada haysatee iyada laftigeedu ha dagaalanto hays difaacdo hays ururiso weerarkan leeyahay wuxuu ka soo wajahan yahay competition la rabo in yaa aaminaya qoladan cusub nimanka waa baranay 20 sano lacagta noo hayeen namana dhacaan yaa aaminaya midkaan cusub hadda soo qalajinaya qarxiya ma iska daa lacag cidaan iyaga ahayn ku dirsan mayno una dhiiban mayno mana aaminayno hormuud ammaan bay leedahay iyo in lagu ammaano waa lala diriray waxaan daawanayay dood hadal jeedin oo breaking news ah Bush iyo wasiirkiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa Cheney iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo shantii golaha amniga ugu sareysay ayaa hadlaya waxay yiraahdeen barakaad baanu xirnay hala yaab la igu noqotay barakaad xawlaad yar oo miskiino dad masaakiin oo Soomaali la yiraahdo u shaqeysa shantii ugu sareysay Mareykanka soo fariistay waa xirnay waxay ku tusaysaa colaada loo qabo hay-adahan aan bangiga ahayn oo dal burburay oo aan bangi lahayn dhaqaalaha iyo ka wado gacanta ku haya khatarteedana waa leedahay oo marar badan ma ka hadla khatartooda laakiin ammaan bay mudan yihiin so far inay intaan aaminay amaanadii ay noo guteen oo aysan khiyaamin oo nadicin aad bay ugu ammaanan yihiin sharaf iyo karaamayna u tahay waxaan leeyahay hal difaacdo Soomaaliyeed hay-adaha aleedihiin oo waa success story waxa la yiraahdo Soomaalidu waxay ku faani karto way hawlaado hal difaacdo qodobka igu xiga ismada SSC intaana gelin waxaan arkayaa dhalinyaro jamaahiirta ah ama reer SSC ah oo ku milan aadna ugu foogan inay abuuraan colaad iyo wej kala durb ka ay kala durkaan Puntland iyo SSC arrinta ka waantooba dhalinyaro waxay yeelanina maamulka cusub iyo odayaashiisa iyo hoggaankiisu waxay sheegeen Puntland iyo iyagu walaalo mataana inay yihiin campaign ba hadda ka socda mesela waxaan arkay Daniyo qortay madaxweynihii ugu horeeyay oo soo xoreeyay baan ahay madaxweynihii ugu horeeyay qof iyo cod qabtaanahay labaduba waa runtiis waxa deer laga didana ma jirto waan ognahay taariikh xun inuu ku lahaa halganka bilowgiisii oo dhan gabadha baargaal joogtaa inay codayso maxaa kaga xiran gabadha sool ka qaxaysa oo xabadda ku socota madfacan la dhacay يعني إنه ديدي رصاصتي إن للسيو إنه ديدي إنه دقاليه بحيو قيبتي هرودا كذب إنه كصبيري مالين مرك قفكي وحين التري حتى هذا في عيري أو أرنتا أساسي هذا الوناكسن كيري وناك هين إنه كما جيو وناك هين إنه كما جيو هل كان اللو داي كان بين بكتيرة سيامل حويناها مركي الحرية أساسي that's a fact أنا حرية هدو يرهدو أنا نيكي حرية بانا madaxweyne ugu horeeyay oo sool xoreeyay hadii uu yiraahdo ama madaxweynenimada markaa fadhiya baa sool xorowday waa runtii wax laga didana ma marka dadka yaan la isku dirin yaan buuq la kicin waliba dadkan reer SSC ka soo jeeda sensitive ba arrimahan u keeni karaan ka waantooba iska ilaaliya afkiina ka xirta campaign bay ku jiraan iyaga tartamaya waxay kala khuseeyaan waxaan rabaa isimada SSC inaan kelmad ugu noqdo waa markoo waade qadiyadii ka bixitaanka aad ka baxdeen waxay keentay dareen waxa bilowday markiiba in la yiraahdo 17 baa meelaha laga qoranaya si toos ah u sheegteen fulinteeda la idin karaba ku soo biira sanad bixinta doorashada Puntland hoggaan ka noqda gogol u dhiga dadka
isugu yeeray kor joogteeya guddiga doorashooyinku dadkan uu qabanayo magaciina lagu qabanayo waxaan dhegaystay beesha jaamac siyaadole nama matalo maxamuud caydiid iyo koox uu ka mid yahay waxay wataan baa la yidhi shaabado oo qolada deni qoranayo isaga agagaarkiisa ahaa buu ka mid yahay waxay yidhahdeen halkaa ha laga bireeyo taga haddii nina halkaa laga bireeyo taga garoowe marti kama ahidin waa leedihiin inaad dan ka leedihiin oo aydnaan rabin inay dunto oo aydnaan rabin in buuq ka dhaco oo aad rabtaan doorasho hufan oo si hanaan wanaagsana ku dhacda inay ka dhacdo waad ogtihiin anna waan ogahay dadkuna waa ogyahay marka fulinteedaa laydinka rabaa taga garoowe waxay idiin jirtaa waa ogtihiin waa hal saac oo driving ah oo weliba tartiib loo socdo taga waa laydinka ixtiraamaa waa laydinka qadariyaa qabsada idinkoo wada dhan inta tagtaan meesha guddiga la maamul hawsha oo la fiirfiiriyo la kor joogteeya yaan la iskhiyaamayn magiciina qof alla qofkii ku yimaadana toogasho ku xukuma waxaan kaloo rabaa inaan u sheego qolada siyaasiyiinta ah ee reer puntland nimankaasi way caddeeyeen cidina naguma matali karta yidhahdeen maxaa u qoranaysaan marka intiina ku tartama 49kiina ku tartama waxaad ku kala heshaana nasiibkiin hebel baa boobaya hebel baa gadanaya gatadee waxba igama gelin aniga haddii deni kusoo noqdo waa lagula shaqaynayaa isagaa madaxweynaha hadduu kusoo laabto 49 intuu ku tartamo laakiin hadduu isku dayo inuu wax boobo oo namber soo geliya aan jirin dee lambarkaasi cidna codkooda tirin mayso kumana jiraan xildhibaanna maaha adeerow cidna ma matashid isku xishood oo qadiyadda ha ku ciyaarin oo reerka ha ceebayn oo yacni wixii magaranaysaa la yaqaanay oo ahaa qaraabashada meel walba oo maamul ka dhisan yahay loo qaraab tago adeero waxaas waa dhimatay waa dhammaatay SSC maamul jiro oo madax bannaan weeye haddaad dan ka leedahay siyaasadda xagga aad doorashaa dhacaysa sanadka soo socda hal sano keliyaa kuu dhiman 2 sanoy ahayd sanad waaba dhammaanayaaba ma ujeeda sanadkii 2025 doorashaa dhacaysa halkaa aad isimadana waxaan leeyahay meel aad maqaamkaas sare ku leedahay marti lagama noqdo ka qayb gala kor joogteeya hawsheedana gala waxna ka ahaada hubiyana inay si amniya oo nabada u dhacdo anigu tan kalaanba jeclaa inaad dhisataan maamul idinku aad leedihiin laakiin ma suurtagelin amnigiina iyo wadajirkiina ka muhiimsan wadajirkiina ayay SSC ku dhalatay wadajirkiinayna kusii jiri kartaa marka qaybtaas darteed baan anigu idinku taageeray laakiin waxaa insha allahu ila fiican inaad idinku gogosha dhigtaan inaad hoggaan ka noqotaan maadaama aan laydinka shakisanayn idinku inaad kursi iyo ka raadin